bay accountable u haayeen dabagalka yaa lahaa shirkaddan marka ay wax dhisaysay taana waa su'aashan ku weydiin lahaa xildhibaan xasan ogaal dabagalka adaa lahaa xasano dabagalka adaa lahaa adaa xubin ka mida baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo xaq lagugu leeyahay inaad hantida ummadda u dabagasho kiiga loo la gashay sababaha ay shirkadii Strawini ay ku cabanaysay waxaan doonayaa inaan karoon kugu wareejiyo kontraagii ay xukuumaddu mas'uulka ka ahayd ayaan kugu wareejinayaa waxaan karoon doonayaa inaan kugu wareejiyo bank statementkii oo ay inta copy kaaga qaadi doonto kuwa adigu aad garanaysaa wax ka helay baliishak luqmaano ma qaar ba wax ka helay tan iyo intay joogtay xukuumadda cusub door intee leeg bay imika ku leedahay hawsha aad sheegtay inaanay 70% dhisnayn suuqi waaheen bal taana xogtaada inta aad xog ka hayso intii aad maadaama xog ku jirtay technical teamka hawsha waday iyay accountable wahaayeen macnaha ma xukuumaddii bay accountable wahaayeen dabagalka yaa lahaa shirkaddan marka ay wax dhisaysay taana waa su'aashan ku weydiin lahaa waxay sheegtay halkan waxaan ku hayaad noo sheegtay waxa lagu yidhaaho a failure of contract ay shirkadda Yanti Construction Limited Company waxay saddex qodob bay sheegtay oo failure oo macnaha ay ku jiraan in lacagyoogi la bixin waayey in la gaari waayey waqtigii complete timekii inuu problem ka yimi arrintaa markay warqadan sameynaysay ma technical teamkaas mise guddidii unbaa accountable wahaydoo macnaheedu ma taas bay markaa ilay contract baa jiray contractkani waajibaad buu iyuu muujinayay ciddii la gashayna waajibaad buu ku muujinayay oo macnaheedu ay contractka cidda la gashay macnaheedu yahay kan waa kii COA-ga waa company-ga markaa laakiin kani imika iyagu ay sheegaysaa waa ka iyadu kaga baxayso waa cabashadoodii waa ka iyagu terminalka ku leeyahay saddexdan qodob wax laga qabta bay tiri saddexdaa qodob wax laga qabto oo macnaheedu saddexdaa qodob macnaheedu yahay markii aan halka qortay qodob koobaad macnaha inay leedahay guuldaraysiga in lagu dhammaystiro shaqooyinkii waqtigooda la heshiiyey guuldaraysiga inay bixiso damaanad banki oo shuruud la'aan ah oo loo baahan yahay si xun isticmaalka lacagaha horumariska ah xildhibaan xasan ogaal aad baad ugu mahadsantahay su'aalahaaga su'aasha koowaad mudanaha golaha deegaanka xubinta golaha deegaanka mudanaha golaha baarlamaanka xubin mujtamacii soo doortay wuxuu xaq loogu leeyahay inuu tiimna diri karo kali ahaanna ismaamuusi karo wax kasta oo ay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ka cabanayaan qof ahaanna waad isu diri kartaa guruub ahaanna waad isu diri kartaa imika waxaynu ku shaqaynaynaa as a team waxaa imanaysa mar as individual loo shaqaynayo arrintaas waxay ahayd isxilqaan xubin golo deegaan deydeysa dadkii doortay xaqii ay lahaayeen su'aashaada koowaad su'aashaada labaad dabagalka adaa lahaa xasano dabagalka adaa lahaa adaa xubin ka mida baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo xaq lagugu leeyahay inaad hantida ummadda u dabagasho marna waa local marna waa international arrintan waxay ahayd arrin xukuumaddii hore shaqo ku lahayd waa arrin adiga lagaaga baahnaa xafiiskanu inuu dabagalo oo meel kasta uu tegayo waxaanan ku faraxsanahay caana daatayba dabadood la qabay inaynu maanta uga shaqayno si collective yay shirkaddu accountability u ahayd qof waliba wuxuu accountability u yahay cidda lacagta siisadee
accountability hadduu yahay private company wuxuu accountability u yahay cidda lacagta siisa ee kula xisaabtamaysa meesha waxay shirkaddan accountability u ahayd laba dhinac dhinac waxay ahayd dhinacii technical teamka ahaa ee gudbinaysay warbixintaa suuqa waaheen dhinacna waxay ahayd dhinacii xukuumaddii hore ee ay xukuumaddanu la wareegtay oo ahayd in ay ku eegaan kolba halka ay marayso kolkaa waxaanu ahaa national issue ay xukuumaddu ka mas-uul tahay marka xukuumaddan dambe la eega roolkeeda xukuumaddii hore waxay ahayd xukuumaddii haysay xukunka markii uu suuqa waaheen ku dhacay dhibto ay ahayd deeta madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somalilan wuxuu magacaabay guddi heer qaran oo arrintaa masiibadaa dhacday ka shaqaysa guddidaa heerka qaran markii la magacaabay waxaa isbedelay xasanow xukuumaddii xukuumadda cusubi waxay toos ula wareegtay boosishanadii ay joogtay xukuumaddii hore ee suuqa waaheen ku lahaa saamaynta for example wasiirka xigeenka ganacsiga wasiirka awqaafta iyaga ayaa looga baahan yahay suuqa waaheen wixii ay kala wareegeen xukuumaddii hore inay noo sheegaan waxaan ku soo gabagabaynayaa mudane guddoomiye dhammaan mudanayaashu su-aalaha iga weydiiyeen suuqa waaheen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaana jeclaan lahaa in ay noqoto arrintanu arrintii soo afjaraysay in musuq maasuq ka dhaca dalka waxaa kale oo ay xukuumadda maanta joogta role modelkeedu ahaa ama uu ahaa ujeedooyinkeedu ama golaha baarlamanka ha ahaadee ama golo deegaan ha ahaadee inaynu si collective oo wada jiro uga shaqayno musuq maasuqa aynu dabar jarno asalaamu calaykum mudane golaha deegaanka ee caasimadda jamhuuriyadda somalilan ka tirsan oo maanta nagu soo booqday annagoo ballanna lahayn oo ballan ka qabsaday guddiga dabagalka ee ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan oo xog ku saabsan shaqada guddida khusaysa halkan guddida kula lahaa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa inaanu xogtaa guddida la wadaagay wixii su-aalayo macluumaad hordhacan uga baahanana aanu isweydiisinay mar labaad baad baan kaga mahad celinaa guddiduna waxay insha allah ka qabsan doontaa tallaabooyinka wixii sharciga kaga waajibiyey ka khuseeya dadaalkaaga iyo qaylalaantaada iyo sidaa aad xogaha ku saabsan shaqooyinkii guddida noola soo wadaagtayna aad iyo aad baad u mahadsan tahay wixii la xidhiidha annaguna procedurekeeda iyo howlaheeda iyo nidaamkeeda dee mari doonaa iyo wixii kale aan xog raadina iyo ciddii kale khusayso aad iyo aad baad mahadsan galka iyo ilaalinta hantida qaranka Soomaaliya waxa ka soo baxay xildhibaan Siciid Culey oo cadaymihii u dhawaan Luqmaan Media la wadaagay arrimaha suuqa waaheen shirkadii dalka South Africa ku dhex yaala ugu safray ugu geeyay xildhibaan guddidaad ka soo baxday maxaad halkan saaka u timid waxaan u imi guddiga dabagalku waa guddida ugu sarreysa jamhuuriyadda somalilan ee u baahan in luqmaanow ay baadhaan wixii la xidhiidha musuq maasuq ee dalka ka dhacaya markaa waa stage ka mida stageyada ugu waaweyn ee musuq maasuqee suuqa waaheen ka dhacay in lala wadaago guddiga dabagalka musuq maasuqa waayo markii hore aynu iswaraysanayna markaa waxaan ku wareejiyey dhammaan documentkii la xidhiidhayay ama warbixin ka siinayay guddiga dabagalka way shaqo guddida laftigeeda ahayd oo aanay qabsan waad u dhiibtay maxaad filaysaa si ilaa goormaad sii daba soconaysaa sidii dadka danyartaa hantidooda ay u heli lahaayeen halkay ku maqan tahay suuquna u dhammaystirmi warniyahow muhiimadda ugu weyni waxa weeyaan luqmaanow in aan musuq maasuqa
waxyaabaha ugu khatarsan waxa weeyaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland markii ay qabanaysay waxyaabihii ugu khatarsanaa ee ay doonaysay waxa ka mid ahaa in ay musuqmaasuqa la dagaalanto marka arrintan waxa weeyaan waa arrin aad iyo aad u weyn oo dhinac walba ah kolka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in ay maanta halkaa hawshu ay istaagto xubnaha golaha wakiiladu Soomaaliya haynba mar hore shaqadooda qabsan in markasta dalkan iyo waxa ka dhacay mashaqa ka dhacday doorashooyin baa ka dhacay iyaga laftigooda ku dhaliili maayo in hawshan maanta taalo kuma dhaliilayo laakiin waxa wanaagsan in iminka sii wada jireen waxaan looga shaqeeyo aad u mahadsan tahay xildhibaan Siciid ugu dambeyn ilaa halkii kula gaari doontaa baartaan in arrintanu waxaan jeclaan lahaa in mujtamaca reer Hargeysa oo dhami uu u midoobo sidii wax looga qaban lahaa arrintan dadka qaar waxay leeyihiin Siciid laftigiisa mashruuca wax ka doonayo ka waayay taas ku kaliftay baartaanka maxaad ka oranayaa maxaa laga waayay anagu ummad masaakiin aan wax doonaa anagu soo diga that's not the issue waxa weeyaan mashruuca wax laga waayay waa ka 100 mashruuc musuqmaasuq aanu ka hadlaynayna waxa leelaxna ku jira ma jira waan suuqa waxaan dhismo kuwa adigu aad garanaysaa wax ka helay baliishag Luqmaan ma qaar wax ka helay hadday jiraan qaar wax ka helay mujtamaca la wadaag anigu bari baan ka ahay shiiga loo gada la gashay sababaha ay shirkadii Stawini ay ku cabanaysay waxaan doonayaa in kugu wareejiyo kontraagii ay xukuumaddu mas'uulka ka ahayd ayaan kugu wareejinayaa waxaan kaloon doonayaa in kugu wareejiyo bank statementkii oo ay inta copy kaaga qaadi doonto waxa kaloon kugu wareejinayaa overallkii ay shirkaddu samaysay sababihii keentay in halka ay shirkaddu maraysa markii ay shirkadda joojisay marka waxaan jecelahay inaad mudane gudoomiye waajibaadkaaga ka gudato. Assalaamu calaykum.